أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد وقال الله تبارك وتعالى baan mahad u celinaynaa asagaana mutay in mahad loo celiyo. caaway taariikhdu tahay 22kii rabiicu thaani 1435 hijrada nabiga sala allahu aleyh wasalam, waafaqsanna taariikhda caawa isku aadan tahay 22kii bishii labaad 2014 miilaadiga. tii hore hijrada ahayd, ta dambena waa miilaadiga, laakiin labaduba tanna waa 22 tanna waa 22. wahada bitawfiiq illahi tabaaraka wa tacaala. xikmadda ku jirtana allah baa garanaya tabaaraka wa tacaala. mawduuca ku saabsan ila tali waan kula talinaya, talada ma qaadan. kelimada caawa aan jeclahay inaan ka hormariyo aada u kooban waa hal kelimo. kelimada ayadana waxay waana u tahay lamaanaha ayay waana u tahay, waana sababkeena burburka qoyska labada dhinacba. kelimadaasi macnaheedu waxay tahay wax walba wuxuu leeyahay wax la yidhahdo xaalad degdega, emergency buu wax walba leeyahay, waxaan lagu talagelin oo u baahan birmad iyo gurmad. haddaba gabadha, qof kastaoo dumara, waxaan ka hadlayaa hadda gabadha muslimadda ah, laakiin qof kastaoo dumara bishii waxaa ku yimaadaa wax loo yaqaano addawratu ashahriya ama caadada ama xaydka loo yaqaan. taa weeye kelimadaanu ku magacownay gurmad degdeg ah. qofkii wanaagsanayd, fiicnayd, shaqaynaysay, faraxsanayd, guriga ku dhaqaysay raynrayn, booditaan iyo awood ayaa caawa seexanaysa. ayadoo jiifta ayaa waxay soo toosaysaa ayada oo addawra shahriya ay ku timid ama caadadii ay ku timid. waana wuxuu ilaahay ku beeray gabdhaha bini aadam ka soo farcamay. caaisho oo xajki joogta ayaa caadadii ku timid oo markaasay aad iyo aad u dhibsatay. markaasuu nabigu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam, arrinkan aad arkayso waa shay ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku qoray gabarh kastaoo aadam ka soo farcantaye, ifcalii kamaa yafcalu alxaaju gayra an laa tatuufii bilbeyt. xaajigu wuxuu sameeyo oo dhan samee. macnaha hadday noqoto mina, carafa, musdelifa, ramyuljamaraat, maxaa la yidhaha kulli waxaasoo dhan ee xaajigu uu sameeyo o dhan samee, laakiin kacbada un ha tawaafin buu nabigu ku yidhi sala allahu calayhi waali wasalam, ilaa marka aad ka qabaysato. xaaladdaas ayada ah marka waa xaalad aan lagu talagelin xalay markii la seexan hayay. saa daraaddeed baan u bixinay gurmad degdeg ah. xaalad u baahan sidii looga dabaalan lahaa xaaladdaas ayada ah waxay u baahan tahay gurmad degdega ayay u baahan tahay. tacaamul cusub bay u baahan tahay, faham cusub bay u baahan tahay. gabadhina waxaa looga baahan yahay shay, ninkina waxaa looga baahan yahay shay. laakiin waa tusaale aan bixiyey oo xalay markii uu saaka waagu uu baryeyba
xaalad cusub oo lagu talagelin oo taari ah ayaa gabadhii ku timid. xaaladdaas ayadii ihi raad bay ku yeelanaysaa reerka salban aw iijaaban, labada dhinacba wanaag iyo xumaantaba labaduba way u badan kartaa. haddaba xaaladdaas ayadii ihi waa xaalad khatarteeda leh haddayna raggu fahamsanayn. xaaladdaas ayadii ihi waa xaalad khatar ah hadday dumarku aynan xikmad isticmaalin. in badan oo reeraheenna ka mida ma og tihiin wakhtiyaalka ay dumaan ama muranka iyo shijaarka iyo doodda iyo xataa haddayba noqoto intaa iyo ka badanba, marka dib si saxa loogu noqdo oo si wanaagsan loo fiirfiiriyo taariikhdana dib loogu laabto, arrinkaana waxaa garan kara culummada gasha qoysaska iyo dhibaatooyinka dhex yaalla. culummada inta badan gasha ayaa ixsaa'iyaadkaas hayse qofku wuxuu ogaanayaa inay haweenaydan markay waxaan samaynaysay oo uu ninku leeyahay anoo iska joogay imaagtay, anigoo iska joogay igu buuqday, ay wax aan qiimo lahayn bay ka cadhootay, koob dhacay bay ka xanaaqday ooy meel walba la gaadhay, way waalan tahay qur'aan in lagu aqriyo weeye buu taagan yahay. dhinac markaad fiirsana waa wax cajiib ahde. qof xalay wanaagsanaayo xalay aad wax walba oo faraxa aad wada qaybsanayseen oo sabar iyo dulqaad iyo waxaa wax ka weyn usoo dulqaadatay, unbaa caawa markii saaka la soo kaco oo waagu beriyo waxa weeyaan way xanaaqsan tahay, way cadhaysan tahay. limaada? casabaadkeedaa kacsan, xididadeeda ayaa kacsan. normal ma aha. qofkii asaga aha waa lagu soo biiray oo waa loo yimid, waa qof iltihaab waxaaba hayaba xubnaheeda iyo xididadeedu yacni ka'aaba ayaa ka muuqata, cidhiidi ayaa ka muuqda, waxaa ka muuqda wax la yidhaahdo ay dhahaan culummadu sariicatu linficaal. waxa weeyaan durba way xanaaqaysaa, dulqaad male, waa qaliilatu lixtimaal. waxay yidhahdaan daal waabata way jiiftaaba. gabadhi shalay jikada iyo musqulaha iyo balakoonada iyo dhar la dhaqayo aad moodaysaa maasha allah ilaahay xoogga iyo maxaa layahay xigmadda uu siiyey. bal gabadhan eeg, waaba gabadhi oo saaka kicila. oo maxaa kugu dhacay? hayla hadlin. hata maxaa kugu dhacay? xalay waan wada seexanaye maya hayla hadlin. maxaad ka wadaa? dalqadeeda isii oo kaa wax kale ma aha. xaaladan cusub ee reerka ku soo biirtay ee xaalad taari'a ah ayaana la kala gar. idan gabadhii kasal iyo futuur iyo daal iyo dhabanna xanuun, dhafoorra xanuun iyo madax xanuun iyo mindhicirra xanuun iyo dhabar xanuun ayaa gabadhii ku soo biiray. haddaba cafan, arrinta noocaas ihi waxaan u bixiyey xaalad degdega oo reerka ku timaada bishiiba hal mar. xaalad degdega oo u baahan in la badbaadiyo, u baahanna qaabka loola dhaqmi lahaa in laga hadlo ama laysla og yahay, oo bil walba reerka soo marta. kelimada aan rabo marka waxaa weeye inaan dhaho ninka iyo gabadha isqaba waxaa laga doonayaa musbaqan in ay isku ogaadaan gabadh yahay goormo ayay arrintaa kugu timaadaa. bil walba 15 ilaa 20 waa 5 beri masalan, ama 6 beri. bil walba 1 ilaa 7 bil walba 25 ilaa bisha kale 1 iyo 2. taayib, haddaba waxaad samaynaysaa xaaladdaa degdega ah ee reerkeenna ku soo biiraysa si ayna nolosheenni nooga qasmin, si uusan reerku nooga dumin. adiga xaalad gooni aad u baahan tahay, xanaano gooni abaad u baahan tahay. sidaan kuula hadli jiray si ka duwan si ka duwan baad u baahan tahay inaan kuula hadlo. sidaan kuu dhaqaalayn jiray si ka duwan baad u baahan tahay in lagu dhaqaaleeyo.
waxaad qaban jirtay wax ka yar baad u baahan tahay inaad qabato. idan waa qof xanuunsan dhinac marka laga fiiriyo, waa qof la ilaalinayo nafsiyan u xanuunsan marka dhinac laga fiiriyo, waa qof jasadiyan u xanuunsan marka dhinac laga fiiriyo, waa qof mararka qaarkood aad leedahay waa qof waalan nooca ma. waayo waxaan miyuu reerka ku duminaya, miyuu waalan yahay ayaa marka mararka qaarkoodna qof aan deganayn oo kontaroolka uu ka dhiman yahay oo wax ka dhiman yahay ayaad mar dhinac markaad fiirsan oo la tacaamulaysaa. waxaa marka iga tala ah labada qofa isqabta horta inay mas'alada isku ogaadaan. ragga waxaan leeyahay, ragow xaalada taariga ah gabadhu kuma necbo. xalayba waa iyadii kula joogtay ee kula jiiftay ee kula faraxsanayd ee kula ciyaaraysay ee cashada wanaagsan jikada kuu gashay ee wax adig ku raali gelisay. laakiin waagu markuu bariyey gabadha isbeddelka ku yimid ma isweydiisay mise waxaad adiguna leedahay maxaa la caraysan tahay ood la xanaaqsan tahay ifur haye saddexdii baan kugu furay xataa hal ma dhahayo. waxaad ku garanaysaa arrinku inuusan caadi ahayn. nabigeenu sala allahu calayh wasalam wuxuu noo diiday haweenku markay xaaladdaa ku jiraan in la furo. waayo dabiici ma aha qofkan, waayo normal ma aha qofkan, waayo yacni xubnihiisa iyo xididadiisu si saxa ooma shaqaynayaan qofkani, waayo qofkani qof degan ma aha. marka qof aan deganayn inaad moralkeeda ku ciyaarto oo shaksiyadeeda aad ku ciyaarto. tusaale yar baa ii sheeg, xaaskayga ayaa maalin isoo wacday, hadal aana oga baranin bay igu tidhi. yacni hadda lilfaa'ida inay dhegaysanaysana waa suurtagal, lilfaa'ida baan ka wadaa. hadalkii waa yar qaadan kari waayey, waayo ma u baranin inaysaa, laakiin hadda lama joogo waan ka fogahay. markii ayaa waxaan ku idhi hal su-aal baan ku weydiinayaaye, ma caadi baa tahay mise caadaad qabtaa? markaasay tidhi caadi ma ihi. idan ballankeenu muxuu ahaa? markaada caadi ahayn inaad waxba igala hadlin. soo saas maaha arrimaha xasaasiga ah qodobkaa meel ku qorta. walidaalika gabadhu markay xaaladdaa ku jirto waxbaa ku soo dhaca badan oo ma dulqaadato oo waxay doonaysaa saacadahaas iyo maalmaha inay wax walba la xaliyo. ninka raggaa marka kama yeelo. ninka ragga ah xaaladdaa waxba fuliyo. gabarh salaadii laga fasaxadaad rabtaa inaad wax ku fuliso. gabarh salaadii ilaahay iyo soonkiiba laga fasaxay ayaad adiguna doonaysaa inaad fasaxdo. suurtagal ma aha, ilaahay baaba diiday. idan kelimada sianay ugu dheeraanin mafhuumkeedana aad u qaadataan, xaaladda degdega ah ee bil walba reerka ku timaadaay waa in laysku waafaqo la yidhaahdo xaaladda gabadha xanuun baa loo ictibaarinaya. gabadha xaaladda inayna caadi ahayn baa loo eegayaa. taasi waa ninka, waa inuu nin walbo haddaani i dhegaysanaya oo qolka 114 iyo qolalka kale ku xidhan iyo inta dhegaysan doontaba waxaan ka codsanayaa mas'alada inay dib u eegaan oo ay fadhiistaan caawa habeen dambe jumcadaa soo dhowe jumcada ay fadhiistaan, kadibna ay dibbal u eegaan inta dhibaatada dhex martay waxay ogaan doonaan sababkeedu inay ahayd gabadha oon xaaladdaa ku jirta. 2 inay isku waafaqaan hadda laga bilaabo gabadh yahay goormay caado kugu timaadaa waktigaa iyo waktigaa. haddaba waktigaa iyo waktigaa gurigii waa iiga duwan yahay nin haddaanahay. waan u soo adeegi, jikadii baan geli, gurigii baan wax ka nadiifini, gabadhii baan mataqaanaa ha jiiftee waan dayni. waa nidaamka raggu waa inay fahmaan. laakiin gabadh makiinada oo ordaysa inaan waxba laga cafin ayadana ilaahay iyo rasuulba ay wax ka cafiyeen waa waxyaalaha raggeenu ay intay garan kari waayeen reeruhuna ay ku dumeen. ninkana wuxuu leenaha maxaad la jiiftaa, maa ka kacdid meesha, maxaad isla yeelyeelaysaa, waxa kala. waayo wuxuu arkayaa shalay iyo xalay inay gabadhu wanaagsana. marka wuxuu leeyahy kibir baaba gabadha, kibir sankay ka hadlaysaa buu le. war kibir ma aha kibir ee waa xaqiiqo jirta wey. gabdhahana waxaan leeyahay waxa inkaar ah qof og inuu xanuunsan qof xanuunsan oon ogeyn inuu xanuunsan yahay, qof jiran oo doonaya asagu inuu dhakhtar noqdo. waabad og tihiin xaaladdaa inaydan caadi ahayne maad aamustaan oo aad garataan xaaladdaa inay guriga idinka dubin karto.
gabdhahana marka waxaan leenahay u sheega raggiina oo waxaad dhahdaan xaaladaa markaanu marayno laylama hadlo markaan xaaladaa marayo halka aan ku jiraay waxaasa gabdhuhuna isku mid ma ahe 80% maraaxishaas way maraan qayba mataqaanaa aan waxba dareeminna waa ay jiraan sadiqooni iga rumaysta qaar baad moodaa inay foolanayaan markay ku soo socoto qaar baad moodaa inay fooli hayso haddee gabadha noocaasihi soo ma mudno in loo naxariisto haddaba kelimadeeda waxaan leeyahay arrintaa degdega ah ee reerka ku timaada bil walba si ayna reerahan oga duminin reero badan bay dumisay inta hadda is haysataa ha ka daba tageeno qaanuun ha u dejiyeeno arrintaa taariga ah ee degdega ah abaar hadday dhacdo gurmad baa la sameeyaa sidii looga bixi lahaa cudur hadduu dhaco gurmad baa la sameeyaa sidii looga bixi lahaa idan xaalad kasta oo baraf hadduu dhaco hadda waata Canada iyo Maraykanka iyo baraf aad u ziyaado ah baa sanadka maray xaalad degdegay dawladdu gelaysaa cusbadii baa dhamaanaysa wixii dhan hor adduunkuba degdegaasoo qaybo kamida nolosha weeyaane reerkani goormo ayuu jarasku dhawaaqi doonaa oo gambalan ku dhawaaqi doonaa oo la dhihi doonaa maanta 6 bari oo hadda nagu soo socota reerku caadi ma ahe ogaada oo laga ilaaliyo si looga ilaaliyo reerka inuusan dumin Allah tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanayaa bi asmaa'ihi alxusna wa sifaatihi alula inuu reerahana noo ilaaliyo nagana dhigo kuwa garta xaaladaha iyo isbedelka ku imaanaya bil walba siday oola dhaqmi lahaayeenna ilaahay uu fududeeyo labada dhinacba kelimadaas ayaan caawa ka hormarinaya ila tali waan kula talina talada ma qaadan waxaan ku soo dhaweynaya